marka ragga iyo dumarka isku si ayay maaragtay post traumatic ay u qaadaan isku si bay u qaadaan isku si maskaxdooda ay u dhaawacdaa waana xaalad caafimaad oo aad u halis ah xaaladaas caafimaad marka dadyowgeennii hore way fahansanaayeen laana asra tacadud godadleynta waxay ka timi power dhaqankay ka timi dhaqanka weliba kiisa maaragtay awoodda lebay ka timi ma aha waxa maaragtay hadda markii diinta soo booday dadku ay barteen xataa nabi maxamed calayhi salaatu salaam markii loo soo diray reer ahlu maka iyo madiina markii loo soo diray way jirtay tacadudka way haysteen 8 bees 9 bees kind of boqortooyay ahayd way haysteen insaanka maxaan ku idhahdaa marka uuna wax kaleeto uu sameeyo uuna garanaynin labada shay uu garanayo waa takaaturka maxaan ku idhahdaa waa labada ilaahay qur-aanka inoogaga digo ilmaha iyo maxaan ku dhaha hantida soo marka qof kasta oo kullama qofku kaa ciidan badan yahay uu kaa hanti badan yahay waana hadda saynu aaminsanahay markaynu qabiil markay Soomaalidu ay rabaan inay maaragtay isugu duufaan ama isugu duulaan waa waxa ay isticmaalaan weeyaan marka waxay ka imaatay historically waa arrin aad u qadiim ah weeyaan laakiin haddana bulshooyinku ma yaqaaneen waxa ay tahay waliba Soomaalidu cilmiyan ayay garanayeen xaaladan dhibaatada ay leedahay ay garanayeen lianna fidradii baa sheegaysa hadda ninka marka maxaan ku dhahay xaaskiisu ay khiyaanto ama ay wax khiyaamo ah ay ku samayso maxaan ku dhahay anxiety buu qaadaa argagax buu qaadaa maxaan ku idhaahdaay self esteemkiisa hoos u dhacaa depression buu qaadaa xataa waxaa ku adkaata maxaan ku idhaahdaa haweenkuna intaa in la eg bay qaadaa حتى مركب waxaa ku adkaada qofkii marka inuu qofkii uu ahaan jiray uu ahaado yani qofkii qabkiisa waa burburaya hooseyn baa ku dhacaysa wax naftiisa uu quuri karin buu quuraya yani qofkii meel hoose naftii meel sare ka imanaysa meel hoose imanaysa waxa u dheer maxaan ku iraahdaay ninka oo kale in identity-giisu uu lumo ama qof kasta qofku ka qabadan yahay inuu identity-giisu lumo it can shake his sense of identity يعني waxaa ruxmaya cidda uu yahay qofka uu yahay baa ruxmaysa same thing haweeneydana waa la mid ah qofku wuxuu isweydiinaya anigu yaan ahay maryihiisu ka cararaya waalanaya qofkii hadda waxaynu aragnay meena iyo gabdho waxaynu sanadadii hore tacadudka lagu sameeyay oo ninkooda godadleyn uu ku dul sameeyay oo xaas kaleeto uu guursaday oo waashay baynu aragnay marka maskaxda qoraba sida adkeysiga ilaahay uu kala sameeyay qofku qaar baa waalanaya qaar baa PSTD qaadaya qaar baa isxakameyn karaynin oo dambiyeed weyn gacmaha la geliya markay hawshaasi ku dhacdo qaar baa maxaan ku idhaahdaay isku dumaya oo maxaan ku idhaahdaay xanuunada la noolaanaya ilaa intii maaragtay ilaahay uu farash u furayo maaragtay insaanku wuu kala duwan yahay waxa xataa la dhinac dhigaa griefka xataa la dhinac dhigaa marka laga sheekeynayo buugayga ayaad ka heli doontaan meelaha aan ka soo xigtay copyright-ka idinkana waxaa idiin sheegaya inaad copyright-ka iska ilaalisaan griefka wuxuu la mid yahay bay dhaheen similar to losing someone in a tragic way yani qof walaalka hooyada aabayada qof aad kuugu weyn saaxiibka aad kuugu weyn in aad marxalad halisa ku weydid يعني شل إن أتكويد أي لم تهاي أي أكسب معركة ذكر إن كتقصصي أي لم يلدقن تاس بدل كده ذكر إنه هو محل لم يلدقن بالشوي كهلا وحي لم يلدقن ولو هو شراء أثر كاس وحي لم يلدقن the same thing يعني علم القديم علم الجديد وسيم علم القديم كهاي بالشوي كهستن أي صومالدو كم إذا هذا حياد قبضة مركنين كذي caruurteeda dhalay maaragtay ay meel u joogtay maaragtay wax walba kaga aadanaa maxaan ku orday hal mar haddii uu dhinto de waxaas dhiyada ku safar baxsanaya murugo ka weyn xanuunka weyn iyo qofkaagii oo aad weyday jacaylkaagii oo aad weyday intii oo dhan baa isugu darsamaysa marka waxay sameyn jireen si ay uga yareeyaan murugada uga khafiifiyaan waxay u sheegi jireen inuu maaragtay khiyaano qeyr mashruuca galay yani inuu la guursaday khiyaano qeyr mashruuca mustalaxaas ayaan anigu maaragtay isticmaalaya الخيانة الغير مشروعة برشوين كانوا كل قمان أي دينتي وأديك سنان إنه سمي أما إنه خيامي whatever أي أشيء جرين مركز الله شيء إن حدا أي هذا نوع يورين جرين قهرعان تبي يورين جرين وونا الإنتاج مركز واحد دريم إنسان نفس مركز واحد مركز قفك مركز الله شيء قفك أجوك خيامي ده حدا حنون كذي وحيرين إيسا
wuuna dhintay yani qofkaaga waad weyday qofkaaga wuu kaa dhintay khalaas dib uma arkaysid qofkaaga shilkaan naxdinta leh ama sidaasuu ku baxay dib uma arkaysid taas marka waxay sahlaysaa qofkii maaragtay in xanuunkii ka yaraado markaas waxay odhanaysaa haweeneydii baa laga yaabaa maskaxdeed waxay u sheegaysaa dee cadaala ilaahiya meesha ka dhacday isagoo ku khiyaamay oo dhacdadaa kuu geystay oo jacaylkaaga khiyaamay oo adiga ku khiyaamay oo mithaaqii khiyaamay haddii uu dhintay cadaala markaas waxaa u fududaanaya geeridii baa u fududaanaysa iyo in xaaladii la dheelgaraysaa u fududaan waxba laga yaabaa inay dareento maxaan ku idhaahdaa qof aanay shaqo ku lahayn inay weyday qof aanay lahayn inay weyday badanaa marka bulshooyinka hore wuxuu adeegsan jireen in ay dumarka ay ama ragga xataa waa loo adeegsan karaa marka qof gabadhuu jeclaa laga baqayo marka waxay ahayd kind of wax turaadka ka mid ah oo ay dadku isticmaalaan baheed hadda in la isticmaalo ma garaya laakiin waa la isticmaali jiray taas ilaa haddana waxayna tusaysaa marka geerida iyo khiyaana zawjiya inay same yihiin alkhiyaana zawjiya iyo geerida waa same waxaana laga dhexlaa mental condition aada u weyn oo xanuuno kale maxaan ku idhahdaa hordhac usii noqday so marka gabadha yaysan ku fakerin waa la ila guursaday inay caadi tahay waa marxalad halisabaad gashay xanuunadana maxaan ku dhahdaa kuu soo wadaa maxaan ku dhahdaa taroomadaasi marka aan taa ka nimaadno marka waxaa jiray culumta maxaan ku dhahdaa soomaalidu inaynan yasirnayn waxyaabaha aan ku fahmo waxaa ka mid a waxay sameeyeen wax la yidhahdo masayrtir yacni dadkeennii hore inay ahaayeen dad ogaal u saaxiib ah yacni ogaalka gudaha fidrada cilmiga ilaahay uu maaragtay oo maantana ina baray shalayna inay haysteen waxay sameeyeen wax la dhaho masayrtir yacni masayrtirka micnihiisa markaynu macnayno waxaa weeyaan maadaama xanuunkii dhibaatadii dhaawacii bay waxay u yaqaaneen masayr kelmad masayrkii waxaa laga yaabaa kelmadda masayr haddii maxaan ku idhaahdaa aynu heli lahayn qof linguistic ah oo dee maaragtay wax badan ay inoo qornaan lahaayeen waxaa laga yaabaa kelmaddaas in ay kelmad geeri oo kale la mid a yacni aada u culus inay ahaan lahayd haddii la fasiro laakiin say inoo soo gaadhay ee dee maalin walba dhacaysa hadda fiiri soomaalida maalin walba waynu isdilnaa maalin walba soomaaliya dagaalaa ka dhaca dad badan baa dhinta dhimasho heer xataa maxaan ku dhahdaa qofka uuna inaa lillahi inaa raajicuun xataa inuu dhaho qofkii ayaa ku adkaanaysa wixii buu la qabatimayaa moogta kelmad dhimashada hadda Canada oo kale kelmadda dhimasho waa wax aada u xanuun badan weeyaan kelmaddu oo aada u xanuun badan dadka way wada shoogayaan way wada naxayaan maxaan ku wada qaraacmayaan laakiin marka aad joogtid waddankeeni waa wax aada u sahlan halkana 20 ku rawaxday qof baa maxaan ku dhahdaa qofkii loo sheegaya dhinaca kale maraya ama wuu soo eegaya xataa ilmaheena yaryar intay cararaan bay soo eegayaan marka wixii baa marka uu tikraar sameeyo ya maxay ahayd kadratul misaas tudhib al-ihsaas kadratul misaas tudhib al-ihsaas miyay ahayd المهم wax markay kugu soo noqnoqdaan maxaan ku idhaahdaa dareenkii uu lahaabaa kaa guuraya kelmad masayr marka waxaa laga yaabaa kelmadda masayr waxaa laga marka dadkan inay macno weyn u lahayd laakiin inaga ayna micnihii inoo sameynayn micno yar ay inoo sameynayso marka dadkeennii hore marka waxay micnaha ay u lahayd waxay ahayd bargooyo yacni qof hadda markaad nabar ku dhifatid waa loo xaqaya yacni xaq yacni marka ضميرك فطرة أوقات نفسي قف مرة بوحو أوقات أما نينك سميها نقضاء قبل يسكو سميه أما برشدها أهاته واحد درين سناين واحد إنه يهداوع وين أو قف كان يبعتله جيستي أو قف كان ماركتي دبر كده لقى توكتي أو كلا تضعن لقو سميه أو قف كان حنون هلس اللي جيستي مركا waxay la yimaadeen mustalax masayrtir oo bargooyo ah yacni qofkan karma waxaa jirta karma waxaan hadda la yidhaahdo maxaan ku idhaahdaa adduunka kale ku badan tahay kaarmada anuu aaminsanahay kaarmadu way jirtaa inaguna waxaan dhahnaa karaamaynu dhahnaa cilmiga soomaalida marka aad dhinac kasta ka eegtid wuu jiri jiray ma aha waxa hadda dadka kaleeto aynu kasoo ammaanaysanin ama hadda haysan ama hadda aynu baranayno inagu waynu lahaan jirnay ilaa hadda waxaan isticmaalnaa qofkaasu karaamuu leeyahay tof baa ka dhacda il baa ka dhacda yacni waxaynu aaminsanay karaamadu inay jirto dhirtaa karaamo leh dhirta hadda saynu u goynayna waddankeennii dadkeennii abaaray la dhindhimanaya because kaarmadii ama karaamadii opposite negative marka kaarmada wax kasta kaarmay leeyihiin dhulkaa kaarmale dhirtaa kaarmale xayawaankaa kaarmale maxaan ku dhahay xayawaan dad qaadidood meel ku gubtid iyagoo nool kaarmadoodu laa shaka inay kaa hadhaynin ruuxdaas
maxaan ku idhaahdaa xayawaanka ruux male laakiin kaarmadaas kaama hari karto. qof bini aadana dhibaato u geysatay, dhir aad iska gubtay ama aad warjeeftay, gunta ka wada jartay, qaab kaleetay oo kaaga aarsatay kuugu imaanaysaa. maxaan ku idhahdaa qaab kaleetay cadhadeeda u muujinaysaa. marka karma ama karaama ahaan ba inagu isticmaalnaa karaamada inay qofka ka dhacdayno aaminsanayn. karaamada inay qofka ka dhacdayno aaminsanayn. waxaynu aaminsanayn gabadha maxaan ku idhaahdaa maadaama dembi laga galay inay karaamadeedu ama kaarmadeedu ay ninka dhibaatayn karto. marka si loogu xirsi xidhka soomaalida waxay u taqaanay qofka dhibaato soo gaari lahayd yani wax looga dhigo ama qardhaasta oo kale. qofka inta qardhaas qur-aan lagu qoro loo suro maxaan ku idhahdaa ama sadaqa loo bixiyo ama allibari loo sameeyo xirsi xidh yani qofkaas waxaa loo mushkilad soo socotay ama laga baqayo inay timaadaan looga xirsi xidhayaa weer. marka maseyrtirka wuxuu ahaa bargooyo gabadhan waan ognahay waan ku dhibaataynay, waanu ku dhaawacnay, maskaxdaadaanu dhibaato weyn u geysanay, qofnimadaadaan dhibaato weyn u geysanay, qabkaagaanu burburinay yani laakiin ma rabno inuu ilaahay noo cadhoodo oo maaragtay aanu baaba'no. by the way dhibaato cadho badan oo inagu socota maxaan ku idhahdaa dadka laga tamarta badan yahay dhibaatooyinka loo geysanayo ama diini ha loogu adeegsado ama dhaqan ha loogu adeegsado ama siyaasad ha loogu adeegsado inay yihiin baan anigu aaminsanahay waxyaabaha waddankeena ka jira iyo qodobo kale oo aan kusoo qaadan doono kitaabkayga. marka gabadha marka waxaa laleeyahay maadaama intaas o dhan kuu geysanay waxaan rabnaa inaan kaarmadaada xijaabno oo ayna maaragtay ninkaa xirsi xidh uga dhigno oo maaragtay ninka ayna dhibaato soo gaadhin oo kaarmadaada ayna derderin ama karaamadaada ayna derderin baanu rabnaa. marka waxaa la siinayaa bargooyaa la siinayaa gabadhi, waxaa la siinayaa lacag ama waxaa la siinayaa xoolo baa la siinayaa. ama hadda inagu hadda xajkaa la geeyaa baan u malaynaya, waa la dhaawacaa kadibna xajkaa la geeyaa. inaga waxaa weeyaan gaalka dilgartiisana sii, soomaalidu saas mahmaaha bay leeyihiin, gaalka dilgartiisana sii. gaalka dilgartiisana waxay ka timi qofkan adoo raba inaad disho oo dhaawacdo dhibaatayso haddana maaragtay bargooyo u samee ama wixii u gar u lahaa sii. hadda mustalaxaadka saas ay imaanayaan micnaheedu. marka gabadha bargooyaa la siin jiray si kaarmadeeda loo xijaabo, isheeda loo xijaabo, ninkana xirsi xidh looga dhigo oo ayna dhibaato usoo gaadhin. marka fidradaana keenaysay inay dareemaan. fidrada markasta ogaalka cilmi fidrada bini aadamkay ka timaada, lianna ilaahay markuu aadan abuuray wax walba wuu u sheegay wacallama aadama alasmaa'a kullaha. aadamna wax kastuu ogaa inagu waynu ognahay. sulaalatun min diin baynu nahay, sulaalatun min diin. dhooba hadii laga abuuray inaguna dhoobadiiba weli laynaga abuuraa, lianna ukunta hooyada ku jirta ee ay la soo dhalato maxaan ku idhahdaa ama biyaha qanjidhada aabuhu ay sameeyaan marka ay u diyaar garoobaan inay ilmo ama ay u diyaar garoobaan inay maaragtay wax la falgalaan, ay u diyaar garoobaan biyahaas min maa-in mahiin. biyahaas waxaa weeyaan waa min sulaalatin min diin weeyaan. maxaan ku idhahdaa still inagu dhoobadii baynu nahay. dhoobadiina maxaan ku idhahdaa aadan bay nagu jirta ee wax walba ogeyd bay nagu jirta. callama alinsaana maa lam yaclam, callama alinsaana maa lam yaclam. waan ognahay marka waxyaabahaas oo dhan oo ma aragtay iyada oo cilmi ah baynu ognahay, iyada oo cilmiya baynu ognahay. haweenkana maxaan ku idhaahdaay waxyaabaha ku dhacaya maaha waxyaaba iska dhaca, waxyaaba ku dhacaya maaha waxyaaba iska dhaca, waxyaaba hiddo dheer. waxyaabaha ku dhacaya yani maaha waxyaaba iska dhaca, the same time waa waxyaaba ay weeyaan oo ay la noolaadaan qaarkood. weeyaan so marka ugu dambeyntii marka hibo waxaynu sharaxnay xanuunka hibo dareemaysay. awxa marka iska jir marka inaad tidhaahdid masayr baa ahaya dhakhtar haddaad u tegaysid waa inaad u sheegtaa xanuunada nafsiga ee aad wajahayso. xanuunadaasaan wajahayaa sidaasaa la ii qabtaa, maxaan ku idhaahdaa sidee baa la iiga daweyn karaa. waa inaad saad dhakhtar nafsi heshid waa inaad saa ugu sheegtaa, laanna mujarad masayr maaha waxan, mujarad qiira waxan ma ahan.
وحالة وحالة وين أو محن كل هذا خلق المسكحيات أو ما ركت دعوة أو بهن دعوة marka Faadima axaadiistii laga wariyey ayay si lama filaan ah ayada oo degtay marka dhulka isku qabatay ay maaragtay ay gariirkii iyo maaragtay badnaayay dareemaysay uu ka yaraaday iyo naxdintii ay dareemaysay ay ka yaraatay oo dhulkii caawiyey hibo ayaa waxaa si lama filaan ah إلا معلمات بهذه هبو معلمات ويان سكول بيدكتا مادوينك أي دكتا حكمت مادوينك تربية ده ولي بواحد براتي علمي جا واحد برشة براتي كلية ده برشة براتي هبو وحكسر دعية حديثكي حديث فاطمة اللي جوري بكسر دعية ألا إن فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها إلا أن يشاء ابن أبي علي ابن أبي طالب أن يضلق فاطمة حديثك هذا حسوسنا يسا فاطمة مرضى إن الدين تيدا فتنا يسان فاطمة أني قيبي كم يدويان واحد دبيا ويد دبيا يعني لو هذا حديث كاس وحنا بيوقع عديه كو إنه أدية دي هاي التعدد أدية نفسية وأضحن إلهي قفك هكاهي بني آدنك dadka dulmiga ka galiya ilaahay ha ka hayo aad u xun in uu yahay iyo sidoo kaleeto in uu yahay wax fitnayn karaya diinteeda labadaas laakiin xadiiska bam marka ay fasirayaan maxaan ku radaa dadka wax fasira maxaan ku radaa dadka marin habaabiyay qoladaha dadka marin habaabiyay ka hadlaya waxay kaga xiraan ma aragtay mushkilad weyn ولا بام أو كلا عبي كجا حيران أفك هره أفك دمنا كجا حيران يعني كد وحير بكفى سيران لبعض الدين على مركا تصريف بحكوا سميني النية ده إني وح فهمتي عقلي جاجي مهل كلا تكوجي هيني يعني مش أي فسيرة يعني ما فهم إذا لكن إن هي بقاب كلا تفهم إيسا وفهم لبعتها حنون كدريم يسي دولك أي سجوها يسي نبرك ودنها كجت تاجنا مسكحة كجت تاجنا ملكست كجت تاجنا iyo maxaan ku iraahdaay kelmadda nabiga ay macna u sameynaysa marka isbarbar dhigto halkaas way marka habeenkaas ay hiba baraaruga bilaabaysa habeenkaas hiba waxay bilaabaysaa in waxay ilaahay wuxuu fahansiinayaa waxa haya in uu yahay maxaan ku iraahdaa tiiraanyo diimeed ayadana ay xaalad nafsi ah oo aad u xanuun badan ay ku sugan tahay oo ay u baahan tahay maxaan ku iraahdaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay hiba hesho dawo marka socdaalka hibo ee tiiraaya bixinta halkaas ayuu ka imanayaa waxayna hibo si maxaan ku lama filaan u xasuusanaysaa haweenka xaafadda oo ka sheekeynaya mararka kamida niyadeeda maxaan ku dhegteeda ku soo dhacay iyaga oo si hoose maaragtay isula xanshashaqaya oo ka sheekeynaya weliyad inay jirto ama qof ay weliyad ugu yeedheen oo haweeney ah oo tiiraaya bixin u samaysa haweenka maxaan ku iraahdaay dhibaataysan rag iyo dumarba oo magaaladeeda joogta marka waxa isku xidhmi doona weliyada iyo hiba isku xidhmi doona qofka ay weliyada ugu yeedhayaan maxaan ku iraahdaay hibo tiiraaya bixinta maaragtay u samayn doonta iyo hibo ayaa isku xidhmi doona hibana waxa maxaan ku xadiiskaas ayaa wuxuu ahaa inuu maaragtay ogaalkeeda soo kiciyo afta maaragtay kadib xaaladii ay ku jirtay xalqadeena maanta halkaas ay inoo joogaysaa maanta dhinaca maaragtay cilmiga aynu xooga saarnay dhinaca diiniga waynu ka degnay xalqada xigtana waynu arkaynaa halka inala gasho